Assalaamu calaykum. Maxaan had iyo goor u daalanahay? Waa su'aal aad u muhiim ah oo ay tahay inaan isweydiino nolosheenna. Haddaba halkaan maanta waxaan kugu soo gudbin doonaa 7 sababood oo kaa dhigi kara inaad mar walba daalanaato. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Nambarka 1 hurdo la'aanta. Qodobka 1 ee kuu sababi kara inaad mar walba daalanaato waa inaadan helin hurdo kugu filan. Sida caadiga qofka waxaa laga rabaa 24 saac inuu ka helo 8 saac oo hurdo ah. Taa hadday dhicinna waxay u keeni kartaa qofka inuu dareemo caajis badan iyo daal joogto ah. Haddaba iska ilaali dhafarka, ugu yaraan hadday habeenkii hurdada kugu yaraato, isku day inaad maalinkii aad ka seexatid saacado. Nambarka 2 inay ku hayso xaalad maskaxeed ama wax loo yaqaano stress. Waxaa jira waxyaabo badan oo dhaliya stresska sida welwelka iyo shaqada oo kugu badata. Tusaale, hawlo loogu talagalay maalmo badan in lagu qabto inaad isku daydo inaad ku qabato hal maalin. Arrinta noocaas ah waxay sababi kartaa daal maskaxeed, madax xanuun, iyo inaad si joogto ah u dareento daal aan kala go' lahayn. Nambarka 3 inaadan cunin cunto isku dheelatiran. Cunada maalintii aad cunayso waxaa looga baahan yahay inay ka koobnaato noocyada kala duwan ee cunto, sida carbohydrate, vitamins, proteins, lipids, fibers iyo minerals, si loo haqabtiro howlaha jirka gudihiisa ka dhacaya oo ay mas'uulka ka tahay maskaxda. Tusaale, maskaxdu waxay u baahan tahay carbohydrate si ay u samaysato energy badan una haqabtirto howlaha jirka gudihiisa ka dhacaya. Si la mid ah, murquhu waxay u baahan yihiin proteins si ay shaqadooda ugu daalin. Haddaba haddii midkooda aad u cunto si qiyaas la'aan ah oo kuwa kale meeshay ka maqan yihiin, waxay kuu keenaysaa daal fara badan iyo culays jirka soo kora. Haddaba si looga fogaado waxaa loo baahan yahay in la isku dheelitiro xaddiga cunto ee aad cunayso. Nambarka 4 in biyo kugu filan aadan cabin ama dareeraha jirkaagu hoos u dhaco. Sida aan wada ognahay, jirkeena 65% waxa uu yahay dareere. Biyaha oo kugu yaraada waxaad dareemaysaa oon, daal aad u badan iyo caajis daran oo ay weheliso tabardari iyo maskax xanuun. Haddaba waa inaad cabtaa biyo kugu filan si looga fogaado daal fara badan oo ku imaan kara haddii aadan cabin biyo kugu filan. Nambarka 5 xaaladda isbeddelka jirkaaga ama duqoobida. Mar walba ay da'daadu korayso, jirkaagu waxa uu isticmaalayaa energy ka badan kii aad isticmaali jirtay yaraantaada. Sidaa darteed waxaad dareemaysaa daal. Daalkaas waxaa u sababa unugyadii oo gaboobay. Sidaa darteed waxaad dareemaysaa daal aad u badan oo soo degdega iyo caajis badan. Nambarka 6 inaad samayso aalamiito xad dhaaf ah. Iyadoo la ogyahay marka aad aalamiitaynayso iyo marka aad aalamiitayninba inuu jirka energy kala duwan isticmaalayo si uu u haqabtiro xaalad walba iyo sida ay markaa tahay. Marka aad aalamiitaynayso, jirkaagu waxa uu isticmaalayaa energy heerkiisu sareeyo oo ugu horeeyo energy ugu dambeeyay ee calooshaada ku jira aad cunto ahaan u soo qaadatay. Haddii uu kaas dhamaadana waxaa loo gudbayaa kii jirkaagu ku kaydsanaa. Haddaba haddii mar loo gudbo energy ku kaydsanaa jirkaaga, waxaad dareemaysaa daal fara badan oo ka dharshay energy kaydka ku ahaa oo la isticmaalay amaba dhamaaday. Nambarka 7 kuleelka daran. Marka aad joogto bi'ad kuleelkeedu uu daran yahay, uu heerkulka jirkaaga uu ka badan yahay kan deegaanka, jirka waxa uu isku dayayaa inuu heerkulkaasi iska caabiyo, waxaanu ugu jawaabayaa dhidid si jirka loo qaboojiyo loogana hortago kuleelkaas tirada badan si uusan u dhaawacin unugyada jirka. Haddaba xaaladda noocaas ah waxaa ka dhalanaysa inaad dareento daal fara badan. Haddaba haddii 7 xaaladood wax ka badan aad ku dareemaysid daal fara badan, fadlan la xiriir dhakhtar si lagu daaweeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.